madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdiga uu hogaaminayo wasiirka difaaca ee dalka Ingiriiska Master Hyfan Williamson oo booqasho rasmi ah ku yimid jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankan oo ahaa mid saacad qaatay ayaa muddadii uu socday waxa lagaga wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boqortooyada Ingiriiska oo ay Soomaaliland xorriyaddeeda ka qaadatay sanadkii 1966 Juun, iyadoo safarka wasiirkuna uu yahay safarkii u horreeyay ee mas'uul haya xilka wasiirka difaaca uu ku yimaado jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana kulankaasi uu ku dhammaaday is-afgarad buuxa iyo in la sii xoojiyo cilaaqaadka labada dal ee Ingiriiska iyo Soomaaliland lana dardargeliyo horumarinta arrimaha iskaashiga ee ka dhexeeya labada waddan. waxaana madaxweynaha Soomaaliland kulankan ku helinaya wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo gaashaandhigga iyo safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsan dalka Ingiriiska. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka Soomaaliland, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.